السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بالشوينت الصوماليات وانا سلامي maanta iyo mar kale iyo midsan waxaan maanta ka faalan doonaa noocyada dugsi sare ee ku yaala dalkan Turkiga ee hadda joogno si bulshada ku noolna ay u ogaato fursadaha u banaan dugsi sareeyaha say kala yihiin kan ugu haboon ay geysan karaan maxaa lagu kala doortaa ardayda maarata qof walba ma u siman yahay arrimahaas ayaan rabnaa inaan ka hadalno marka noocyada dugsi sare waa ilaa iyo 5 nooc way ka badnaan jireen ilaa iyo 7 nooc bay ahaayeen ka horena way ka sii badnaayeen laakiin sida loo soo la isku soo celinayay baa waxa laga dhigay 5 nooc baa hadda lagu soo koobay 5ta nooc maxay kala yihiin kuwa la yiraahdo fanlicense oo ah dugsi sareyaasha sayniska lagu barto oo ardayda injineernimada dhaqaatiirnimada danaya xisaabaadka iyo chemistry physics inta saaculeeska aad loo saara kaas waa group labaad waxa la yiraahdaa social bilimlar license waa kuwa cilmiga bulshada lagu barto siyaasi dhaqaaliyahan abukaate kuwa iyo casharada lagu barto ayaa la yiraahdaa group saddexaad waxa jira asagana la yiraahdo Anadolu license waa standard school oo dalka oo dhan ku baahsan kan ugu tirada badan ah wax walba uu qaabilaa waxa kale oo jira mesleki ve technique meslek license kana waxa weey waa dugsiga farsamada gacanta oo koronto xiriska laamiga sameeyskiisa garaashka ama baabuurta dayactirkooda qalabkaasi farsamada gacanta ayaa inta badan xoog la saaraa waxaana loogu talagalay ardayda hadhow markay ka soo baxaan intay jaamacad dhiganayeen dhanna ka shaqeystaan dhanna ay maarata ay waxbarashadooda jaamacadeed ka sii wataan nooca ugu dambeeya waa nooca Anadolu Imam Hatib License oo nooca xogo diinta u dhow asagana waa maaragta iskuulada ayuu ka mid yahay dugsiga sare marka inta ardayga markuu dugsi dhexe dhiganayo inta way u furan yihiin inta markay u furan yihiin marka 5ta nooc laba nooc baa loo kala qaadaya laba group 5ta nooc laba group marka loo kala qaado waxay noqonaysaa group ka koowaad oo ah group imtixaanada dawliga ah ee markaska ah oo centerka dawladda ay qaado hadhow kuwa ugu dhibcaha fiican arday ku qaata ardayda ugu dhibcaha fiicnayd bay qaataan iyo group kale waxa jira oo caadi ardayda normal iska qaata kan imtixaanka ku qaata ardayda ugu dhibcaha badan baa ayuu qaata halka kan kale adresska ayuu ku salaysan yahay adresska adigu aad degan tahay qofka Turkiga markuu guri degayo wuxuu ku xisaabtamaa gurigaas iskuulka ku yaalo guushiisa dalka meesha kaga jirto marka waxaad arkaysaa xilliyada iskuulada la furayo aad in guuritaanka guryaha uu u badan yahay maxay family walba cunug dugsi sare u gaaro dugsi sare ku haboon bay u guuraan intooda badan mid imtixaan baa lagu galaa bandri adresska doonta deganaaw tusaalaan karaan joogna meesha doonta ka deganaaw hadhowtii xaq baad u leedahay haddaad dooratid dhibciisana la timaadid group kalena adresska marka aad degan tahay xaafadaada kan hoos yimaada ayaa tagaysaa marka faafayntiisa dhar waa si gali doona iskuulada marka imtixaanka tirada ku qaata oo tayada badan oo kan ugu fiican ah tiradooda Turkiga oo dhan waa 1367 marka sida uma magaalooyinka weyn uu ku badan yahay marka awal hore dugsi sare sheegnay waxa jiri jiray caafimaadka oo kale dugsi sare ay kalkaalisooyin ka soo baxaan markii dugsi sare ay dhameysaba qofka ama uu dhameeyo uu sii wadan karo mid macallimiinta ku takhasusa marka hadda 5taas lagu soo koobay 5taas shantaas laba dhamaantood waxay wada leeyihiin group imtixaan wax ku qaata iyo group aan imtixaan ku qaadan ee address ku qaata ardayda intaas markaan sheegnay kadib su'aalaha imtixaanka oo marka ardayda ay galayaan si ay iskuulada imtixaanka lagu gaaro ayagana u galaan qof walba uu furan yahay ardayga Soomaaliyeed hadii imtixaanka dhibcooyinkii loo baahna uu ka keeno dugsiyada tayada la waa aadi karaa marka 155 daqiiqo ayaa loo fadhin doonaa imtixaankaasi waxaana uu ka kooban yahay 9 su'aalood sanadkii mar baa la qaadaa dugsiga dhexe markuu waqtiga si dhamaan rabo 9 su'aalood ardayga 155 daqiiqo u fadhin doona hadii dhibcihii loo baahnaa uu soo gaaro iskuuladu doortay midkii ku haboon bay geynayaan su'aalahan waxay ka kooban yihiin luqadda Turkishka ah ama af Turkiga oo 20 su'aalood ka kooban xisaabta oo 20 ka kooban sayniska iyo tiknoolajiyada oo 20 ka kooban taariikhda oo 20 ah luqadda ajnabiga tusaalan Carabi dooro English dooro German dooro Ruush dooro luqadda marka dooratid 10 su'aalood ka mid ah u diyaar garow iyo diinta cilmiga ayaa iyagana 10 su'aalood ka imaan doonta marka lixdaas qodob bay maarata saddexna min 20 su'aalood saddexna min 10 su'aalood ayaa ardayga la weydiin doona 9 ka su'aalood laba group baa loo kala qaadi doona su'aalahan ardayga 9 ka su'aalood hal mar ma wada fariisan doono 50 su'aalood mar buu fariisan doona 40 su'aalna mar konton su'aalood mar loo fariisan doono subaxii 9kii barka ayuu bilowdaa sanadkii mar baa la qaadaa san hor u sheegnay 9kii barka subaxnimo ama 3 saac bar subaxnimo ayuu bilowdaa wuxuu ka kooban yahay kuwa luqadda quseeya hadalka ah يعني af Turkiga taariikhda ma xan ku yiraahdaa luqadda diiniga
عشر كديني جاء يو لغة أجنبية أنت سيوك كوبني هاي وأنا كنت سؤالات وبريجر بالغاتا كوي طبعا كيبرك عم شنصع بر ظهر نمو أيها هذا الجروب كلا بعض أوفريستان حساب يو ساينس بهذا الامتحان لو قليا لبدا سنا أفرتن سؤالات بوكا كوبني هاي أسجل مرك أردا يجي لبدا نوجلا امتحان كدبيه وأباهنا مركو كان صدا ستوس اسكولada imtixaanada lagu galo ayay ku aadiyaan marka see loo doortaa yani seen ku ogaan karaa midkan doorna ilaa 5 su'aal baa lagu ogoliyay magaalada aad adigu ku nooshahay 5 su'aal imtixaanka dhibicii hadaa keentid kan koowaad hadaa gaari wayso kan labaad hadaa gaari wayso kan saddexaad ilaa 5 jeer baad fursad haysataa shanta su'aalood shanta iskuul aad dooratay midkii dhibcahaada ay ku soo aadaan baad geenaysaa shantaba midna waa qaban waayay Soomaa midna dhibciisa waa keeni waayay oo kan ugu hooseeyo 70 baa lagu galaana 65 baan wataa 65 iskuulka marka addresskaad u dhowba tagaysaa groupka kale aad ku biiraysaa yani iskuul aan noqon maysid dhibcihii loo baahnaa shanta group haddaad keeni wayso shantaas iskuul mid kamid ah haddii dhibcooyinkaada ay ku gaarsin waayaan iskuulada addresska caadi waad iska tagi kartaa marka kuwa kale markay soo horaan 9 iskuul baad leedahay 9 fursadood kuwa kale marka imaam haatibkii maxaan ku yiraahdaa kan sayniskii kii anadoluga kii cilmiga bulshada kii sayniska intaan oo dhan shantiiba midka doontid dooro 9 fursadood baa ku banaan kaasna marka 9ka fursadood ku banaan 5 qodob baa lagu qiimeynaya 5ta qodob hadii 5ta sidii la rabay ay ku noqdaan marka iskuulada aad dooratay 9kaasi kan koowaad kan labaad hadba sidii aad u kala dooratay ayay u kala fursad badan yihiin tusaale kan koowaad hadii aad dooratay kan koowaad baa lagu qiimeynaya marka rabitaankiisa ama criteriagiisa aad soo bixin wayso kan labaad kan saddex ilaa kan sagaalaad marka shaki kuma jiro mid inaad galaysid ilaa sagaal mar walba mid baa galaysaa waayo kan ugu hooseeyo waa haddaadan waxba la imaan hataa waa gali kartaa laakiin kan ugu horeeya inaad saad ku gali lahayd 5 qodob bay ku qiimeynayaan koo horta meesha aad degan tahay qof walba qofka addresska uu kugu dhow yahay uu kaga mudnaan badan yahay tusaalaan aniga maxamed ah hadii aan yimaado laba gurin uu iga xigo axmed baa fursada koowaad leh maxaa yeelay isaga iskuulka iga dhow hadii uu iga buuxsamo intaan sugay axmed iyo inta la diiwan galin haduu iga buuxsamo iskuulka dariska la ah ee address ahaan ugu dhow baan tagayaa hadii kaas laga waayana midkii kale ay dawladda ku dirto mid un bay ku diraysaa say isku xigaan hadduu ka buuxsamo b baa lagu diray b hadduu ka buuxsamo c baa lagu diraya ka waa deegaanka marka lagu qiimeynayo tan kale dugsiga dhexe inta bilood inta semester aad dhigato waa lagu qiimeynaya tusaale ahaan waxaan ku imid fasalka 8aad baan ku imid dugsi hoose waa aan hadda ku daray 4 weeye 4 koowaad labaad saddexaad afaraad waa dugsi hoose dugsi dhexe shanaad lixaad toddobaad iyo 8aad marka ardaygii 8aad imid iyo ardaygii shanaad ka soo bilaabay iskuulkaas midka 4 sano dhex joogay midka 1 sano joogay mudnaan kala duwan bay u leeyihiin addresskaasi qofkan 4 sano ayuu addresskani degnaa iskuulkan wuxuu ka soo bilaabay dugsiga dhexe wax badan buu waqtigiisa halka yimid marka uu ka nasiib badan yahay ardayga 8aad ugu soo biiray waa ka mudnaan fiican baa laga siinay adigu iskuulka hadda timid kana kaaga horeeyay kana marka iskuulkan addresska dugsiga sare la geenaya qodobka kale lagu eegaya waa mudnaantaada doorasho numberkii ku jirto haddii kan ugu horeeya ee dhibcooyinkaada ku gaarsiin markii kan hore lagu diray dhibcooyinka ku gaarsiin kan ku xiga kan ku sii xiga sana daawe bisheegnay mudnaanta numberka doorashada uu kaga jiro iskuulka aad dooratay waa lagu qiimeynayaa tan kale lagu qiimeynaya waa guushaada dhibcaha oo dugsiga dhexe aad kala timid dugsiga dhexe dad dhibcooyin fiican kala timid 80 ilaa 100 iskuulka dooratid baad leedahay 60 ilaa 80 iskuulkii lagu gartaad leedahay 60 ilaa eber meesha lagu tuuro aad marka da'dan waa la qiimeeyaa cunuga ka yar yahay addresskiisa gurigiisa address ku dhow baa la geenayaa dugsiga dhexe haddii cunug maarata 14 jir 13 jir au yimaado mid 16 jir waxaa leeyahay adigu waad weyn tahay baska waa raaci kartaa meel dheer waa iskuul u doonan kartaa laakiin kan wuu yar yahay kana addresska loo soo dhaweynaya shantan qodob baa lagu qiimeynaya oo ay tahay hal mar haddaan dib ugu laabto qodobka koowaad lagu qiimeynaya waa deegaankaada addresskaada meesha ku yaalo mar walba aad iskuulka u dhowdahay waa kana si badan tahay waxa kale lagu qiimeynaya inta sano dugsigaas dhexe aad dhiganaysay dugsigaas dhexe ee dugsiga sare ku gudbin doona inta semester aad dhiganaysay waa muhiim numberka doorashada uu kaga jiray iskuulka dooratay waa muhiim guushaadii ama dhibcooyinkii aad dugsi dhexe kala timid waa muhiim da'daadana waa muhiim marka intaa waxaan niri iskuuladii dawladday ahaayeen laba group baa loo kala qaadayay qaar waxaan niri imtixaano iyo projects kullar baa la yiraahdaa project schools projectay diyaariyaan adduumay qabtaan kuwa waa dhibcooyinkaada ku gaarsiin kara kuwana addresskaada iyo sababihii kale aan hadda sheegnay ay ku gaarsiin karo marka school walba imaam haatib ha ahaado kan sayniska ha ahaado dhammaantood
mid wanaagsan oo heer sare ah iyo mid normal iska labadaba way kala leeyihiin marka waxa ku soo haray iskuul kale private ah baa jira iskuulada private lacagtaada ayagu hadday doonaan imtixaan bay arday ku qaadanayaan ardayda ugu activesan baan qaadanaynaa si magacaan u soo baxo way dhihi karaan hadday doonaanna intii dawladda ay u qortay iskuulkaasi dhibcooyinkaas ayaa la ogolay inuu qaato haddii la yiraahdo toos way u qaadan karaan mar walba waa tay kartaa iska soo diiwaan galan kartaa lacagtaada collegeski waxa ku qoran way waxaa kaloo ku soo haraya Soomaalida xogo waxay isku qaldan iskuulka Imam Hatibka madrasa ayay u maleeyaan intooda badan dadka intiisa badan yani qalad bay ka fahansan meel madraso diinta lagu barto macluumaad oo maarata hadhowtii sheekh uu ka soo baxay ayay u heestaan iskuulkan iskuulada kale wuxuu dheeryahay wax walbo science iyo macluumaad aha iskuulka lagu barto isagoo lagu barto wuxuu u dheeryahay 10 kale oo diini ah oo 4 sano loo kala qaybin doono 10 dheeri baa la siinayaa oo diinta ah si uu maarata diini imaadib uu isku darsado laakiin ma aha kaliya meel diini lagu barto labadaba way isku jiraan 10 siirada rasuulka ayaa ku jirta fiqiga ku jira luqadda carabiga luqadda Usmaaniyiinta xadiidka quraanka siirada nabiga inta oo dhan 10daas oo dhan xadaarada islaamka 10daas marka hal san lama wada siinayo sanadba mid laba ayaa loogu dareeyaa tusaale ardayga dugsiga Imam Hatibka dugsiga sare markuu soo galo sanadka koowaad 6 maada ayuu ku bilaabaya markuu sanadka 12aad uu ka baxayana ama form 4ka markuu ka baxayana 12 maada ayuu ku qalin jabinaya marka 8 maada mar walba aas ah iyo 4 dheeri oo diini ah baa mar walba uu ayuu wataa marka dugsiga sare dugsiga dhexe ardayga markuu ku soo dadaalo dugsi sare wanaagsan galo dugsigaas sare wanaagsan jaamacad wanaagsan buu ku soo diray jaamacada wanaagsan faculty wanaagsan oo qiimo leh oo maaragtay ku shaqaysan kartid buu ku diraya kadibna nolol wanaagsan xagga inkastoo qof walba dadaalkiisa ay tahay noloshu inta markay tahay marka waxaan u baahanaa marka ardayda horta in lala taliyo macluumaad laga siiyo in maaragtaa waxa isaga hor yaala iyo waxyaabaha laga rabo waajibaadkiisa inuu garto qofka markuu mas'uuliyadiis garta ayuu maaragtaa gudan karaa inta marka loo sameeyo macluumaad dheeri ah u raadiya waalidiinta waxyaabaha waxbarashada aas ku ah oo hadii la waayo aan la helaynin waxa weeye waa horta koo luqad iyo xisaab ardayga hadii maado walba loo keen afkay ku qaranta uunan fahmaynin maadadana ma fahmayo hadii laba ku daro af Shiinees hadii lagu weydiiyo afkii Shiinees aadan garanaynin waa xisaabtaas way kugu adag tahay ma garanaysaa way ku fududahay marka koo horta ardayga in luqadda waqti la siiyo sanad ha ka lumo laakiin marka hore inaad iskuul luqadeed marka hore loo diro ama macallin guriga loo qabto laga soo kabo waqti dheeri ah 2 saac 3 saac maalintii in la siiyo uu luqadan isku soo kabo hadii macallinka uu wax sharxayo uunan fahmaynin casharkiina ma fahmi karo dhibciisana ma kubcayaan wax kale oo asaas ku ah maadooyinka oo dhan waa xisaabta ardayga mar hadduu xisaabta ku fiican yahay maadooyinka intiis badan way u fududaadaan mar hadday xisaabta ku adag tahay maadooyinka intooda badan caqabad bay ku noqdaan maxaa yeelay maada chemistry biology physics intaan oo dhan asalkoodu waxa ah xisaab waa hooyada 10 oo dhan hadii la waayo maadooyinka dhan ogoon bay wada noqonayaan oo yaani ilmada maadooyin dayacan bay noqonayaan hadii la helo dhamaantood waa ka soo kabcaysa marka waa luqad muhiimada iyo xisaabtii marka inta dhan inaad la socotid oo xisaabtiisa waa meeqa natiijadii iskuulka marka la soo xiro inaad ogaatid macallimiintiisa la xiriirtid oo aad ardayga daba gashid waqti wax akhris asiisid waqti wax kala la qabanayno guriga laga kala aamusayo oo isagu wax akhristo hadii TV ka shidan yahay oo TV shidan arday wax ma akhristo hadii la dabiyahay waqti wax akhriska la jooga 2 saac waxa la wada akhristo macallin inaad u qabatid guriga xisaabaadka waxa ka soo dhiso ama ba YouTube ka xataa way ku jiraan 10 badan oo kaalmay dadka kaalmay oo sar marinaya inaad inta oo dhan u raadisid marka jaamacad dugsiga sare hadda waxaan ka sheekeynay ardayga dugsiga dhexe jooga dugsiga sare sidoo u gali lahaa dugsiga sare iyo wax say u kala baxaan marka waxaan ka sheekeynay ardayda dugsiga sare dhigata jaamacadaha sida ay u gali lahaayeen videogeena kale iyo kulankeena dambe salaamu calaykum dhamaantiin